رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب. السلام عليكم دمان أصحابتا كسو دواغا channelkeena Faisal2 Jowhar fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe dheh sagaalka Abriil ayay NASA sheegtay in uu adduunka kusoo beegan yahay dhagax weyn kaasi oo burburin doona dunida aan ku noolnahay waxaana sii faafiyay dad fara badan si indha la'aan ah ayagoo aan waxba hubsan NASA ayaa faafisa maalmihii u dambeeyay filmaan khayaali ah sidii filimkii ay samaysay 2017 filimkaasi oo ay ka samaysay lacag aad u fara badan NASA ayaa sidoo kaleenta sheegtay in dhagxaanta ku soo wajahan dunida ee ay ka awood badan yihiin nuclearkii lagu garaacay Hiroshima iyo Nagasaki kuwaasi oo ay ugu magac dareen Fat Boy and Little Boy dadka aaminsan saynisyahanada ayaa arrintani aaminay si indha la'aan ah dadkaasi oo u maleeyay in ay noqonayso 29 Abriil maalinta adduunka ugu dambaysa ama maalinta qiyaamaha haddaba dhegaysta xagee ay ku dambaysay barnaamijkii NASA ee ay maalmihii u dambaysay faafinaysay sidoo kaleenta aaway dadkii sida indha la'aanta ahaa ee u aaminsanay saynisyahanada inay og yihiin wax waliba oo ay cilmi u leeyihiin inay ogaan karaan maalinta qiyaama oo ku andacoon jiray sidaas tiknoolajiyadda in ay sheegi karto wax waliba waxa aan nasiib xumo ah in dad muslimiin ah ay aamineen
kaliya Allah subhanahu wa ta'ala ayaa og maalinta qiyaama qof bilaadan ah ama tiknoolajiyad sheegi karta ma jirto maalinta qiyaamaha ah. dhagayste waxa aan soo gaarnay dhammaadka barnaamijkan. fadlan ha iloobin inaad tiraahda subscribe, aad commentina ka soo dhiibato fikirkaaga, waana muhiim. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.